ma jiraan wax dhaqan caadooyin iyo diin ahayn oo Soomaalidu la wadaagto bulshooyin kale oo aan Soomaali ahayn markii diinta laga saaro caadooyinka iyo dhaqanka diinta islaamka intaanan imaanin qolo walba waxay iska aaminsan tahay diin khuraafaad ah ay aaminsan tahay marka Soomaaliduna diinay haysatay waa diintii waaq oo eraygan waaq oo hadda maaragtay baaba'ay awal wuxuu u ahaa Soomaalida iyo Oromada iyo Sidaama iyo Afar iyo Radiile iyo aduu afartameeya afar oo kushiitika ah khaasatan kushiitikada bari waxay aaminsanayeen hal diin oo ilaahigoodi waaqo ahaa iyo ilaahiyad maaragtay la caabuday labadaas ilaah waaqo wuxuu ahaa cirkana iyo sky god ayaa la yiraahdaa cirka iyo ilaahiga waa isku mid marka waxay aaminsan qorraxda in ishii ilaahay ay tahay ma aragtay marka maxaa u daliil ah waaye marka in Soomaalida maaragtay ay aaminsanayeen waaqi waxaad arkaysaa erayal isku lamaanan oo qadiim ah oo qabaa'ilka Soomaaliyeed iyo magacyo Soomaaliyeed oo hore ay baxsan jireen sida caabud waaq marka ay leeyihiin caabud waaq waxa waa kii caabuday waaq marka islaamku u yimidna waxay Soomaalida isku dayday in ay tarjunto erayada ama magacyadii carbeed Abdullah oo kala Abdullah way moogtahay waa adoonkii ilaahay marka maxay baxsadeen bidda waaq waa adoonkii waaq markaan laakiin loolama jeedo waaqii oo hore loolama jeedo waa la islaamiyey ma fahamta marka taas waa kale midda kale hadaan soo koobo waxaan war badane waxaa jirtay ilaahiyad ay aaminsanayeen islaamka ka hore dadka diinta waaq aaminsanaa marka haddaan wax yar aan ka sheego ilaahiyadaas oo muhiim ah dhaqanka Soomaalidana haraagiisa ayaa laga arkaa misaal waxaa jirta Soomaalida gabdhaha uur kale markay 9 iyo meelahaas ay gaaraan waxay sameystaan waxa la yiraahdo kur madax shub waxa uu yaqaana Soomaalida waana isku mid marka waxay sameeyeen waxa loo duceeyaa maxaan ku yiraahdaa gabadhaas inay nabadgelyo ku dhasho waxaana la cazumaa oo kaliya islaamaha braa la cazumaa meeshaas maartay madax shuba la sameeyo dhaqankan oo aan ka bedelneen waxaan ku arkay nimanka booran la yiraahdo oo muslim aanan ahayn oo weli diintii hore ay haystaan sidii islaamihii loo yeeraa maalin jumca ayaa meesha lagu kulmaa waa loo duceeyaa waxa leeyahay ateetoy furo maartay gabadhan intay nabad ku dhali lahayd da Soomaalida fiirsanaysaas ateeto waxa waa ilaahiyadaas waa marka inagu maadaama islaamka aanan ogoleen shirki si loo qariyo dhaqankaana aanan dhumin ateeto waxa lagu bedelay maskiin Fatima bint Rasuulullah ayaa la xusaa iyo Xawa ayaa maartay almusawirta markaas la leeyahay Faatimo furo marka Faatimona wax ma furan kartaa ilaaha ayaa dhalisiya taas marka muqaarana hada u sameeysid waa dhaqankaasoo dallad islaam loo yeelay marka taas waxay ku tusaysaa inay jireen diimo hore maartay